lamaano u dhashay dalkaasi Faransiiska ayaa waxay xabsi ku mutaysteen wiilkooda yar oo 3 sano jir ah oo si kam ah ay u dileen isla markaana iyagu ay isku cadeeyeen in dilkaasi ay geysteen. Waxaan ku iri shaqaalaha adeega gurmadka ah waxa uu ka soo dhacay jaranjarada sidaas oo okay ma ahan. King 252 kulanti wacan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa janalka King 252 ku soo dhawaada gacmo furan. Janalkani waxaad ka helaysaa warbixinada caalamka kuwada ugu wanaagsan qisooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha markaan isleenahay bulshada janalkan la xiriirta aad ayay u raali gelin karaan. haddii aad ku cusub tahay fadlan janalkan subscribe saar gabaleelkana furo si aad ula socoto warbixinada kale ee aan soo dhignay ilaa raali ka noqdo. asxaabtii horena haddaa ka mid tahayna waxaan idin leeyahay share iyo like-ta inagu dadaala waa mahadsantihiin. lamaano u dhashay dalka Faransiiska ayaa loo xiray dilka wiil yar kadib markii cadeemaha la xiriira dhacdadaasi guud ahaanba iyo xogtaasiba ay hooyada dhashay wiilkaasi ay si kama ay ula wadaagtay shaqaalaha adeega gurmadka degdega ah. wiilkaasi yar ayaa waxay u dhashay nin hore bishii November sanadkii 2016. dilka ayaa waxaa geystay nin markii dambe adeer ahaa ee hooyada gadaal ay ka guursatay ee lagu magacaabayo Fentaal. ninkaasi ayaa daadiisa waxaa lagu sheegay inuu ahaa 28 sano jir waxaana lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah. arrintani uu ku mutaystay dilka wiilka yar ee lagu magacaabayay Tony oo xilligaasi ahaa wiilka yar 3 sano jir. hooyada dhashay ayaa iyaduna waxaa lagu magacaabaa Carolina xilligaasina waxay ahayd 19 sano. marka jugta ugu xooganeed wiilkaasi ay ku dhacday ayaa durbadiiba hooyadii waa beer wax dhalay ee waxay si degdega u dalbatay gurmadka degdega ah ee ambulasta waxayna sidoo kale ay wargelisay in wiilkeeda yar ee Tony uu miir daboolmay. intii ay qadka ku jirtay oo su'aalo laga weydiinayay dhacdada iyo sida waxa ay u dhaceen ayaa hooyadii waxay durbadii aynan ka warqabin in codkeeda duubis ay ku socoto oo waaxda gurmadka degdega ay duubayaan. iyadoo la hadlaysa ninkii dilkaasi geystay ayaa waxay tidhi waxaan ku iri shaqaalaha adeega gurmadka ah waxa uu ka soo dhacay jaranjarada sidaas oo okay ma ahan. taleefanka ayay iska sakisay balse ma aysan ogaynin in duubis ay ku socoto codkeeda. Carolina ayaa sidoo kale laga duubay iyadoo leh jaranjarada ayaa fiican sax inaan iraado oo dhacdada halkaasi aan dusha u saarino balse hadalkeeda waxa uu noqday mid cadeen u noqon kara waxaana lagu soo saaray maxkamad. markii ay dhaqaatiirtii caafimaadka ay yimaadeen guriga Carolina oo ku yaala magaalada Reims ee bariga dalkaasi Faransiiska ayaa waxay arkeen wiilka yar oo xaaladiisu ay aad u liidato isla markaana uu ka muuqdo nabarro aad u fara badan. goor dambe oo habeenkii ahaa ayuu Tony ku geeriyooday cisbitaalkii lagu dabiibayay. markii ay booliska su'aalo ay weydiiyeen Mr. Fentaal waxa uu qirtay inuu isagu dhowr jeer nabarro uu ku dhuftay wiilkaasi yar oo una garaacay maadaama buu yidhi hooyadiis ay isbarteen muddo 3 bil ah ka hor waxauna jeclaystay in wiilkaasi dhexdooda uu ka saaro uu isdhaafiyo. ugu dambeyntii dhowaan ayaa xukun lagu riday maxkamadda oo in muddo qaadatay. intii ay maxkamadda socotay ayaa garsooraha dacwadda qaadayay hooyada waxa uu su'aalay maxaad caawimaad u weydiisan weyday booliska mise adigu waxaad la jirtay ninkaaga oo raalli ayaa ka ahayd dilkaasi. waxayna ku jawaabtay waan baqayay oo waan doonayay in caawimaadyo aan weydiisto balse maysan ii suuragelin cabsi daraaddeed. markii sidaasi ay qiratay ayaa maxkamadda waxay u tiigsatay qodobka ah in iyaduna ay ka mid tahay dadka dembiga qariyey sidoo kalena waxaa xabsi ay ku muteysatay muddo 3 sano ah. wiilkeediina waa uu ka geeriyooday. ninkeedii dambena Mr. Fentaal isna waxaa lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah. sanadkii waxa uu ahaa 2016 jir ayuu ahaa 20 sano kale ayuu xabsi ku jiraya. arrintani ayaa aad looga hadalhayaa ilaa iminka jaraa'idaha ka soo baxa dalka Faransiiska waxayna noqotay qiso aad cajiib u ah iyadoona dadka qaar ee filimada soo saara ay doonayaan in arrinkani ay filim ka sameeyaan si marka lagu waana qaato in marka qof labaad xiriir aad la wadaagayso in carruurtaada dhibaatooyin uusan u geysan. qisooyinkan oo badan waxay ka dhacan sidaan ka warqabno gudaha dalka Soomaaliya ama shacabka Soomaaliya dhexdeeda in adeer ama eedo carruurta ay rafaadiso. sheekooyin badan iyo heeso badanna hore ayaa looga qoray waad ka warqabtaan. inta ayaan ku soo koobayaa warbixintan intaan ku kulmi doono warbixinada xiga sida iyo nabadgelyo.